bulshada degmada ceelbe ee gobolka Sanaag oo galabtii isugu soo baxay goob fagaara ah ayaa baaq waxay ugu jeediyeen hay'adda FAW iyo NGO-ga ARD ee muddada dheer ay shaqada uga hayeen degmada ceelbe gudaheeda waxaana ugu baaqeen lacagtaasi ay hay'adda FAW ugu baaqday in ay markaas u soo doontaan degmada baran ayaa bulshada reer ceelbu waxay ugu baaqeen hay'addaasi in ay lacagtii ugu keento degmada ceelbe gudaheeda ay hore ugu qaadan jireen waana kuwan iyagoo ka hadlaya arrimahaasi hay'adda FAW iyo NGO-ga ARD baaqaasi u jeedinaya waxa uu yahay lacagta dadkii baanu nahay yuubanta ka shaqeeyay harada ceelbu ku taala dadkii ka shaqeeyay baanu nahay muddo dheer baanu shaqeynaynay bil Ramadaan xitaa waanu shaqeynay oo ay Ramadaan oo la garanayo diifta ay leedahay waanu shaqeynay inta oo dhan xisaabtaas lacagta oo naga maqnayd waxaanu leenahay oo hadda leeyahay ceelbu baran ha u soo guurto uma guuri karo baran uma guuri karo ma tagi karo waxaanu leenahay cabyaan waxaanu leenahay indhool waxaanu leenahay caamo waxaanu leenahay cudurow waxaanu leenahay mid reer miyiga oo jira lugaal jira waxaanu leenahay mid oodaa jira waxaanu leenahay mid xadeed jira waxaanu leenahay mid sool bari jira uma bixi karo lacagta ma soo doonan karo uguma tagi karo baran waxaanu leenahay halkii aanu ka shaqo galnay ee hay'addu naga shaqo gelisay oo tii hore ay nagu siisay inay noogu keento leenahay haddaanu nahay ceelbu waxaanu joognaa meeshii aanu ka shaqaynay nin meeshuu ka shaqeeyay bini'aadanka meeshuu ka shaqeeyaa lagu siiyo wixiisa baran oo ilaa 80 kiiloomitir noo jirta kaalada annagoo wax walba leh ma yeeri karo mana imanayno hanaloo ku keeno meeshii aanu ka shaqaynay iyadaa dahabsiin leh dadku wax walba waa leeyahay wuxuu leeyahay mid maataa oo jiifa wuxuu leeyahay dumar wuxuu leeyahay nin shaqeeyay ma aha dadku dad tegi kara meesha caalamka ninku meeshuu ka shaqaystay baa wax lagu siiyaa hanaloo keeno haddii aanan lahayn dee malihin haddaanu leenahayno meeshaanu ka shaqaynaan hanaloo ku keeno wasalaamu calaykum ka shaqaynay ciidda iyadaana na shaqo gelisay samafal bay noo samaysay oo noo fidisay samafalkii ay noo fidisay waxaanu ka codsanaynaa hay'adda sharafta leh waxaanu ka codsanaynaa annaga oo haween dadka la qoray waxay ahaayeen dad danyara waxa weeye odayaal islaamo dhalay yurura jiifta maxaan ku raadayay dee ummad maxaa ilaahay wax ka og yahay weeye ma qarash garoobi karo lacagtii ayna siin jirtay khayr allaha siiyo waxsan allaha u dhaafiyo wixii keeni jiray iyo waxa sidaba waanu u ducaynaynaa waxaanu ka codsanaynaa in ceelbu halkii ay nagu siin jirtay noogu keento ayaanu ka codsan karin ma tegi karo haddii inay tagto in aan tegi karin baa badan markaa lacagtii waxa weeye hanaloo gargaar bay noo fidisay gargaarkaa noo gargaar haddii maxaan ku rahdayay ilaahay ka dhigo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فو السلام يا الله يا هيدا فو أنو شقينا إني مدبرا أو رمضان كشفتي أنا أو صومن كانوا شقينا إني هذا سان قضى إني ماشي عن قضى وعيلبه بدن ما نقدين بدن ما يمان كرنه لعنا ما صدقنا كرنه وحويا ما تانو لنا هاي سرير شيف بانو لنا هاي عريان بانو لنا هاي عام بانو لنا هاي مثل رمي بانو لنا هاي وحوله يسيبها ينصدي مركا وحن هيدا فو كعد سنينا lacagtii hay'addu inay noo keento meeshii ay nagu siin jirtay inay noogu keento marka hay fawsaasaan ka codsanaynaa anagu ma aadi karno dadka waxa weeyaan 130 qof in ka badan bay ahayd 20 qof oo xoog haday aado taa inta kale ma aadi karno mana iman karno marka waxa weeyaan hay'adda faw waanu salaamaynaa iyo shaqaalaheedaba waxaanu leenahay hay'adda faw inay lacagtii noo keento baanu dantayadu waa inta uun baanu اللهم صل على محمد والسلام يا معيدا فو وحنو كعدسنينا إتال ما هي نصر وينبانو هيدا وحنو كعدسنينا وحنو لين هاي فرقو وحنو لين هاي فديدو وحنو لين هاي ددان إتال هاي وحنو لين هاي دد شيفا وين نوك أنت لعبت يدي وين نوك أنت إلهي نجسي ينوب الدقد وين نوصيته إلهي نجسي ينوب الدقد وين نوك أنت بانو إذن كعدسنينا اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم hay'adda FAW oo gelisay shaqo muddo 3 bilooda bulshada ku nool degmada ceelbu ay ka shaqeynayeen dad gaadhaya ilaa 150 qof
ayaa waxay hay'addu ugu baaqday inay markaasi lacagtoodii mushaharka ahayd ay u soo doontaan degmada Badhan ee gobolka Sanaag bulshada reer Ceelbuna ay markaasi walaac ka muujisay waa Axmed Cabdullaahi Ciise Axmed Cashuur telefishinka caalamiga SBS TV degmada Ceelbu ee gobolka Sanaag